itis hara vira malu day ama bawan kaliyan isbag uu soo laabtay magistarkan caadiga ma ahan sababtoo filimkiisa Premiere show xal la daawaday Bushpatu recordkiisa ka fakaday kadib markii 7 karoor 6 karoor laga helay dhankaas iyo Andhra Pradesh iyo Telangana oo kaliya waxa la marka bawan kaliyan siyaasadda isku boojeen intuu iska dhaafo guud project ha sameeyo labadii sano laba film la imaad sana tooreyash waaweyn ka mid yahay si uu kaga faa'iideysto awoodiisa laakiin awoodiisa dhinaca kale oo aadi oo hadafka uu lahaa uu gaaray maadaama siyaasadda halkii ugu sareyso uu gaaray xisbigiisa asigoo hogaamiye kuraasta ugu badan ee doorashada ka helan ugu dambeysay weynada Hindi ka dhacday ismaamulka Andhra Pradesh iyo Telangana wuxuu ka noqday chief ministeriga labaad ugu sareeyo ninka ugu sareeyo qofka labaad ku xigu noqday federaalka dabcan Andhra Pradesh iyo Telangana marka dhinacana doo ku liito oday dhinacana iska dhisay laakiin ugu dambeyntii screenka ay ku soo laabtay saa darteed bilaabashadiisi waa hola xale Premiere maanta si wali ku furmay 75 karoor 80 karoor uu gaari karaa dheewan sida la qiyaasayo laakiin waxaan aadeynaa maadaama xalay habeen filimka hara vira malu lagu mashquulay maxaa laga leeyahay daawashadiisa sababtoo meel kasta laga daawada bayad Premiere maxaa soo baxay review-ga saaxiib yar waa mixed to negative waa positive review lama kulmaayo filimka saddex xidig la siinaa meelaha ugu badan kuwa qaar kood waxay siinaan laba xidig iyo bar dhibaatada ugu weyn ee qabsatay bawan kaliyan filimkiisu waxay tahay way two part looga dhigay hal part sheekada inagu soo koobay ee saadartay waxa la markay second half same drama ku dhacday qaybta labaad filimka maadaama lisda sheekada la ceejisay part 2 looga sameeyo kala bar wixii ka dambeeyay filimka ever noqdo marka hara vira malu first hour waa brilliant second half ka dambe waxa la waa buur sidoo kale tan aalada VFX qaabka loogu tiyay wax ka jira malahan marka mistake ama qaladka ugu weyn ee teamkan galeen waxay ahayd in idea fikradda hara vira malu 2 part laga dhigo haday xasuustina directorka filimkan sheekada bilaabo Krish waxyaabo kaga baxay waxa kamid ah wuxuu dhawr sheekada filimkan waxay ku fiican tahay hal movie aan ka dhigno ana shaqadeedu waa gutuuda filimka la saaro teamka ka diiday waxay dhahaan maya maadaama bawan oo wasiirka ugu sareeyay Andhra Pradesh Telangana kan labaad uu noqday sheekada hal wado hal kala jibsho waxa loo joogina galan Krish waa isaga bax project waqti miga luminaysan hadda marka waxa soo baxday la Krish inuu saxsanaay second half ka dambana filimka waxa la aad loogu ciyaaro waxay sheekada hal mar leh in laga dhigo filimku wuxuu dhamaanaa iyadoo la dhahay qayb labaad loo baahan yahay daawadaashan ay ku caajisay markaan isla eegno waxyaabaha filimkan laga sheegay bawan kaliyan isbaago soo laabtay markii jilinkiis wax lagu sareeyay saaxiibayaal iyo waxa la dabcan doorka uu qaatay hara inaba caadi ma waliba missionku u socdo sidoo wax kasta u sameeynayo waxyaabaha waa highlight filimka loo daawan doono laakiin waxa la marka la fiirsho bawan kaliis filimka loo daawanayo jilayaasha kan kaalintooda ay qaateen si guud ah iskula eegna marka waxa la bawan kaliyan qaybtiisa koowaad 4 sano ayu mashruucan socdeen dhameystir ugu dambeyntii waa dhameystir hara vira malu part 1 sword fi spirit ayaa loo bixiyay hadaba sheekada waxay ku saabsantay waxa la joogaa 650kii hara vira malu waxa la dabcan waa yar dhalinyaro ah waa dib dabcan awood badan bawan kaliyan Robin Hood lagu u nool sida macnaha qof mission kasta oo galo ku guuleysto waaye saadarta hadafkiisu wuxuu yahay inuu dabcan soo cilisho waxa ka maqan Kohinoor ama Diamond ay ka maqan tahay boqortooyada loo yaqaan King of Kolar boqorkaas ay ka maqan tahay waxa loo xil saaraa marka inuu ka soo cilisho boqortooyada Mughal awood badan Kohinoor ka haystaan ama dahabkaas oo koofida oo dahabka ay haystaan ama Diamond ka saadarta marka shakhsiyad badan taskigan kala shaqeynayaan taskigan wuxuu yahay Vira inuu soo cilisho hadaba waxa la marka yaa laga soo celinaya taskigaas waxa dahabka waxa haystaan Kohinoorka boqortooyada Mughal ninka ugu xooga badan Aurangzeb haysta kaasoo aan loo dhawaan karin cid kasta oo ka maqlo inay u baahan tahay Kohinoorkaasna qoorta ka gooyo dadka Hinduugana xoog ku haysto saadartay marka bawan kaliyan missionku u soo baxay kala barkoor wuxuu ku ekaanayaa in Kohinoorkii dabcan uu ku guuleysado haddana wuxuu bilaabaa mission kale ku aadanay inuu u sharaacdo dhankaas iyo Delhi xarunta boqortooyada Mughal ee ka taliso ama centerka ugu weyn si uu boqortooyada soo baabi'iyo waxa la leeyahay marka filimka markii kala bar la soo gaaray iyo Delhi la aada la safarka la galo ayuu caadiska bilaabnaa laakiin first hour-ka waa brilliant maxaa filimkan plus point 2 waxaan la iloobi karnaa leedahay markii la fiirsho qaabka bawan kaliyan filimkan uu jilay doorka uu qaatay impactful waa saameyn leh muusigada loo garaacay actionada uu sameeyay dialogue emotionka meel walba kulita meel walba excellent ku yahay bawan kaliyan wali waxa la qaabka actionka filimka loo sameeyay action choreography waa biggest asset marka filimka daawanaysid actionka indhaha kama qaadi kartay first afka horena ama halka saaci barka horena waa brilliant oo inaba caadi ahaan sidoo kale tan waxa la saaxiibayaal filimkan waxyaabaha kale loo daawan doono waxa qayb ka ah Bobby Doolna wuxuu qaatay door electrifying oo laadar qamarjinimo iyo xaasidnimo ka muuqato laakiin dib u celshay reerta lagu ma sii deen ninkan shaashadan kuma badno sidoo kale tan waxa la waxay u egtahay in wax walba loo dhigay qaybta labaad ee filimka in la isku horkeeno Bobby Dool iyo ninka lagu magacaabo bawan kaliyan dhinaca kale tan waxa la daawadayaasha qiimaha badan gabadha lagu magacaabo Nidhi Agarwal doorkeeda inkastoo oo kooban yahay ayadana waxay qaadatay kaarin adag ay qaadatay muxuu filimkan ku liitaa horta halfka hore brilliant waa iska daameel dhigbo qamarjinimada Bobby Dool iyo dadka soo waxa suuqay awoodiisa
iyo Bowen Kalyano asigana missionka u socdo ku guuleysanayo laakiin second half ka dambe waa meesha lagu kala cararay waxa leeyahay nus saac ama 40 daqiiqo waxa ku jirta caadis iyo mala yacni aan socod badan liska galay VFX ko aad u liis second half ka dambe waxa leeyahay marka ceebaha ugu badan filimkan second half ka dambe soo baxday sidoo kale tan waxa leeyahay marka la fiirsho wixii lagu yaqaan face of or good vs evil in liska hor keena atooraha ilaa darkana ma jirto waxa isnaan teamka filimka Bobina goorihan u dagaalamo Bowen ha soo guuleysto markay isku imaan rabaan filimka dhameynayaan si qayb labaad lagu daawado waa waxa ugu weyn ee waxa leeyahay marka daawadayaasha niyada ka jibiye maba ahaana leeyahay filimka in qayb labaad laga sameeyo in ninkan Bowen Kalyano isku imaadaan Bobby isgaraacaan mid uu guuleysto second half dambe waxay strategy ku sameeyeen mala yacni oo xeerabaan ku dareen jacayl ku dareen safar dheer ku dareen waxa loo baahneen waxa leeyahay marka waxa muuqato ninkii filimka iska lahaa Krish in raaligelin in la siiyay sababtoo filimka sidoo half ka hor u dhiga loo daayay second half ka dambe sheekadu isku qolaaseen lahay Bobby iyo Bowen isqaban lahaayeen filimku waxa lagu dhameystirlaa ajandii loo socod in la gaar laakiin wuxuu filimka dhamaanaa ayadoo ajandii ugu dambeeyay aan la gaarin taasoo xitaa taageerayaasha Bowen Kalyano intooda badan ay ka niyad jaban VFX kana buur quality waa la aad u liitaala lacagta faraha badan la galshay iyo qaybta dambe filimka almuhiim marka waxa waa nin wixiisi laga qaato lagu ciyaaro waa yar lagu magacaabo Jyot Krishna ma la producerka wiilkiisa filimka dhameystiray meeshaas waxa laga fahmi karaa in ceeb badan ay ka jirto marka Hari Harab Viram Malu waxa le marka waa big opportunity wasted fursad weyn oo la qasaaray taageerayaasha Bowen ku raaxaysan doona hubanti ahaan laakiin filimku waxay ka soo tagaan ayagoo ciil hay oo dhahan why second half filimka aan part 2 lagu sameeyay sababtoo filimka waxa part 2 loo sameyn karaa marka part 1 hadafkiisa gaartid oo ay jirto meel kale laga dhaqaaqi karo laakiin waxa la filimka part 1 ba ma dhamaanba ujeedka laga lahay meel dhax lagu kala goodaad soo marka waxa la marka big loss oo filimka fursad ay kaga lumeyso sheekadiisa saas ay noqotay Bowen Kalyano ninka idin ku soo aragtidiina ka dhibta kulli waxaan isleeyahay aniga maalmaha ugu horeeya waa gadmi doona 3 star oo Bowen Kalyano filimkiisa not bad muxuma laakiin filashada ee dad kale in dhaxaad kale wada daawadaan filimka meesha way ka haraysaa maadaama sheekada half ka dambe ee liidata filimkan dayaacad badan ka muuqato